maamulaha guud ee shirkadda National Airways waan salaamayaa reer Buuhoodle dhammaantood ulamaawdiinka maamulka shacabka dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee shacabka cid walba kamida waxaan ku salaamayaa magaca iyo maamuuska bulshada ku dhaxleeya inta kadib waxaan ballan qaadaynaa insha Allah taala inaan joogtay doono falayga Buuhoodle Muqdisho isku xirkeeda inaan joogtay doono ayaan ballan qaadaynaa insha Allah taala maamulka iyo dhammaan dhaqanka iyo inta bulshadu ka koobantaana waxaan ka codsanaynaa inay ilaaliyaan nidaamka. My name is Captain Eric, working for National Airlines. The runway in Bodle is very good, sufficient for the Fokker 50. All they need to do is compact the apron so that in case it rains, the surface will be able to hold the weight of the aircraft. Apart from that, the runway surface is good and no problems whatsoever. marka hore waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto maanta waxaa timid Buuhoodle International Airport Ismaaciil Mire National Airways oo rakaab ka soo qaaday xamar halkan ka qaatay xafiisna aan ka furnay magaalada Buuhoodle xafiiskaas oo deegaanka oo dhaxal qabsiga doona baahida ay u qabeen insha Allah ila dhawaad deegaanka hawd iyo maxay haytooy haday tahay gamaha iyo haday tahay ila Soolba ila Braayla inta ka soo kaysay nawaaxiga Buuhoodle ku fadhiyo in diyaaradan ka fay doonto dadkii u aadi jiray meelaha fog inay halkan yimaadaan ka faa'iideystaan chanska dadka barnaamij xanuunsanaya kii xanuunta waa inuu maxay week ku maqnaan if week in diyaarada iman doonto insha Allah inay ka faa'iideystaan waxaan joognaa garoonkii Airport International Ismaaciil Mire waxaa ka soo digtay diyaaradda Asajara rakaab ay qaaday rakaabna way keentay insha Allah ta'ala isbuuciina marba imaanaysaa cidday maqlaysay iyo cidda daawanaysa maqlaysay cidday arkaysaa bana ku soo dhawaato garoonka Buuhoodle ilaa Wardheer Hargeysa Burco Laascaanood Marqaan meel kasta oo arinta laga daawanayo in diyaaradii cargo ay timid rakaabku lagana duuli doono lagana soo degi doono maamulkeenin taqaadkana maamulkeenin dad ganacsatada dad dalkale uu meeshan dhistay ku hawshooday maskaxdooda iyo maalkooda iyo muruqooda geliyay iyaga ilaahay waxaan u leenahay misaaska xasanaadka Allah ugu daro iyagana waxaan leenahay wixii aad dhisteen waad u aaysan inta soo duusana falaygiina soo goostano Dubai timaadaan ka soo degay airportkiina noo bilaabmay maanta falaygii alxamdulillah waan ku mahadnaqaynaa waxaan u mahad celinaynaa diyaaradda National Airways iyo pilootkeeda iyo maamulayaasheeda waxaan kale u mahad celinaynaa dadka deegaanka Buuhoodle oo si fiican u aqbalay inay raacaan falaydka Buuhoodle waxaan u sheegaynaa dadka deegaanka u dhashay gobolka Cayn iyo gobolada dhammaan Soomaaliyeedba inay ka faa'iideystaan falaydka Buuhoodle Muqdisho ganacsatada qurba joogta iyo Buuhoodle Togdheer ayuu dhacaa dhulkani waa dhul aad u population badan waa populationka kaliya ee gobolada Soomaaliya ama dibadaba maxay ahayd ama caafimaad u aada ama ganacsi u aada weeyaan arday haday tahay si kastaba marka waa gobol aad iyo aad u ma sha Allah barwaaqa waxaan wixii maartay inoo soo dusi kara in la iska ilaaliyo la iska shado oo gamcaha la isqabsado oo horumar loo dhaqaaqo oo aan la eegin waji ku macaash inuu qofna raadin inuu isagu doonto wax shaqo ee ummadiisa u shaqeeyo saasan ku boorinaynaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh diyaaraddu waxay imanaysaa axadii walba toddobaadkiiba hadda kula heshiinay laakiin maanta ee rakaabkii loogu talagalay saddex jibaarkiiba maanta raacay way buuxsantay hadda waxaa jooga magaalada ama tuulooyinka ka soo hadlaya dad aad u fara badan oo inay isla bariba buuxsantaa laga yaaba aad baan u faraxsanahay maanta inay noqoto falaydkii koobaad oo dad badan ka baxaan gobolkayga horumarka gobolkayga u soo dhawaaday oo u soo hirgalayna aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan falayd Buuhoodle Muqdisho aan u helo anoo meelo badan sii mari jireen aad baan ugu faraxsanahay Maxamed Axmed Nuur bismillaahir rahmaanir rahiim Cabdullaahi Maxamed Axmed Nuur waxaan ku faraxsanahay diyaaradda timid Buuhoodle ee maanta nooga qaadaysa Muqdisho aad iyo aad baan ugu faraxsanahay amnigooda oo wanaagsan shaqadu sida u socoto fiican ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay baa mahadda iska leh الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على رسول الله دمان أمد الصومالية ميلي جوجتا وان سلامية وحكم سلامي سلامة السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت وحنا شوفنا مدارك قبل كعين إسماعيل مري وحنا كفر السنة إن ديار الداس أي تيمي ما أنت أو ديار الركاب كأهل أوري أي تيمي إن شاء الله نكوكلو كارجوين وإيمان دونان ummadan halkan degan iyo ummadda Soomaaliyeed waxaan u rajaynayaa in ay insha Allah arrintaas u noqoto horumar iyo waxqabsi iyo wadajir iyo iskaashi ay noqoto inta markan ka gudbo dadka qurba joogta madaarkan ka qayb qaatay waxaan leeyahay ajarkiini aakhire iyo adduunka waa faa'iideen madaarkii wakaa diyaaradii baa soo fadhiisanaya kaargoogii kuwii rakaabka